bastoolada ay sitaan ilaalada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo lagu tilmaamo hubka ugu khatarsan Russia ayaa ah bastoolad nooceedu yahay Sertikov waana sanad kamid ah nashqadeynta hubka fudud ee dalkaasi Ruushka iyadoo loogu magac daray injineerkii nashqadeynteeda lahaa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Russia Today. bastooladan oo ay ku qalabaysay ilaalada madaxweynaha Ruushku waxa loo haystaa hubka ugu khatarsan dalkaasi waxaana ka mamnuuc ah in wadanka dibadiisa loo saaro lalamana raaco madaxweynaha marka uu dalka dibadiisa u safro iyadoo warwar laga qabo inay sirdoonka dalalka reer galbeedka ay bastooladaasi si uun gacantooda ugu dhacdo. waa bastoolad ay ka heleen oo ay muddo la dhacsanaayeen saraakiisha ciidamada gaarka ah hoggaanada dhanka sirdoonka militariga iyo cutubyada howlgallada gaarka ee u xilsaaran iyagoo ku caashaqay xajmigeeda yar iyo quwadda ay leedahay. waxaana ugu dambeyntii saraakiisha ciidamada kala duwan bastoolada la gaarsiiyey oo loo ogolaaday inay qaataan bilowgii taariikhda 2000 iyadoo magacyo kale oo kala duwan loo baxay. bastooladaasi dhuunteedu waxay gaaraysaa in ku dhow 22 millimeter iyadoo wax ka dili karta masaafo 100 mitir ah. rasaasteeduna waxay awood u leedahay inay gubto oo baabi'iso 2 gaari oo baabuurta gaashaaman. hore waxaa loogu ogaa dalka Ruushku inay haystaan oo isticmaalaan bastooladaha noocoodu yahay Makarov iyo Tete laakiin kuwaas waxay ahaayeen bastooladihii la soo saaray xilligii midowgii Soviyeeti u jiray mana aha kuwa ay farsameyntoodii jamhuuriyadda Russia si gaar ah u sheegan karto.